ابتسام إبراهيم إسماعيل oo kamida macallimiinta ruucadaaga ah ee dugsiyada dawliga oo dhawaan loo magacaabay maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Guryosamo ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ay sheegtay inay xoojin doonto isla markaana ay kor u qaadi doonto guud ahaan waxbarashada da'yarta sidoo kale waxa ay tilmaantay in ay ku dadaali doonto sidii ay dhinaca hablaha ugu dhiiri gelin lahayd isla markaana aqoontooda ay kor ugu qaadi lahayd aad baan u faraxsanahay waan sugaayay maalmaha kamid un bay ahaayeen ma sugaayeen noqdo oo halka ay meel ka sareysaba waan haybsanay hadii ilaahay ilaahdo waxaan u mahadnaqayaa maxay ahayd wasiirka waxbarashada agaasimayaasha wasaaradda waxbarashada gudoomiyaha maxay ahayd gobolka Maroojah qaybtiisa bari oo ay magacaabay maxay ahayd magacaabista dugsiga hoose dhexe ee Guryosamo ilaahayna waxaan ka rajaynayaa in ilaahay la garab galo ubadka yar yar ee mas'uuliyadooda la saaro mas'uuliyad culus qarankana waxaan ka baryayaa in maxay ahayd igu soo duceeyaan in ilaahay ku garab galo maxay ahayd magacaabista la magacaabay dugsiga hoose dhexe ee Guryosamo habli waxaan leeyahay habluhu waa dubdhaxaadka nolosha waa la ogaaday maanta Soomaali way ogaatay habli ama Soomaaliland way ogaatay habli inay dubdhaxaadka nolosha yihiin hablaha waxaan kula dardaaraya anigu horta markaan iskuulka tago Guryosamo waxaan horta barashar saaraya aqoonta hablaha waayo anigu maanta halkaasaan maraya hooyo wax bartay ilaahay ka tisaaysiye hablaha imkaan gacanta u qaban doono waxaan jecelahay aqoontooda kor u qaado la garab istaago ilaa inta jaamacad ka gaadhayaan hadaan noolaado hadii ilaahay dhaafo hablaha waxaan leeyahay meel kasta ay joogaan hablaha Soomaaliland inaan xitaa haday guursato aqoonta ka hadhay waayo gurigeeda ku soo dabaqaysa ubadkeeda ku soo dabaqaysa hooyooyinka guriga joogan waxaan leeyahay hablaha ka daaya shaqada faraha badan loo aqoonta u wadira hablaha aqoonta u dira hablaha haloo dira aqoonta saasay Soomaaliland guul ku gaaraysaa dubdhaxaadka noloshu waa inantii oo hooyo noqotay oo marka dambe wax baratay heer baynu gaarina gacmaha la isqabsada hablaha la caawi inamadayda laga tagay oo nacmayn laakiin waxa la ogaaday noloshu inay habliyihiin waa salaamay maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Guryosamo ayaa sidoo kale waxa ay fariin u dirtay waalidiinta ay ardaydoodu dugsiga Guryosamo wax ka bartaan iyadoo uu ku booriday in ay ka warhayaan ubadkooda isla markaana ay dhaqdhaqaaqooda la socdaan waalidka waxaan ku dardaaraya waalidku iyo carruurta iskuulka u diray carruurtu iskuulka iyo macallinka iskuulka iyo guriga dhexdiisa dhexda ka baxaya waalidku ha tooso waalidku carruurta ha la socdo iskuulada aanu joogno waxa weeyaan waalidku ku yar yahay hadii waalidyaadana hooyaa timaada aabihii uu ka saxday ubadka haduu aabuhu ka saxdana inankii cid qabanaysa ma jirto aabaha ayaan xoog u dardaaraya aabo toos oo ka toos hurdada iyo maxaa mashquulka iyo qaadka oo u toos waxaad ifka keentay isaga ifka keenay ku soo lugooyay ha u dadaalo ubadkiisa oo ha ogaado qaadka iyo kaga mashquulnay haduu deel nolol doonayo oo ku inasinayay ha u dadaalo oo iyo kaga mashquulin qaadka ayaa baalay waa Mawlid Maxamed Saciid magaalada Hargeysa.